xamda yuusuf ibraahim oo loo yaqaana xamda qaali iyo barwaaqo maxamed xaashi oo loo garan og yahay barwaaqo qalanjo oo ka mid ah fanaaniinta sida weyn fankooda uga soo dhex baxay magaalada Hargeysa ayaa muddo ka badan 2 bilood ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa. xadhigooda ayaana weli xukuumadda Somaliland ka hadal. qaar ka mid ah ehelada iyo asxaabta labadaasi fanaan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xariga fanaaniintani xamda qaali iyo barwaaqo qalanjo. geesta kalena waxay cod dheer ku sheegeen in xukuumadda Somaliland uu gadhudeyka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay cafis uga dalbayaan labadaasi hablood. halkan waxaan maanta shir ku jirnaa hablaha naga xidhan maxaan ku dhaday xamda qaali iyo barwaaqo qalanjo oo dhibaato sameeynin oo xamarka ay tageen mooyaan Somaliland dambiye ka geysan maxaan ku dhaday xamarna aan iyagu aan ugu horeynin dad badan oo ka horeeyay ay jiraan asay imka qaar maqayna bas ay joogaan waxa way iyagoo dambiga ay lagu qaaday aan lagu qaadin asay iyaga maxaan ku dhaday dambi lagu qaaday hase ahaatee maxkamadda sharafta ay fasaxday oo maxaan ku dhaday xornimadoodii u fasaxday asoo iyagoo wax dambiye lagu waayo oo Somaliland aan ka gelin in maxaan ku dhaday sharaf leh oo qiimo leh oo qaayale iyo dawladda sharafta ka codsanayna in loo soo daayo ayagoo maxaan ku dhaday أنت وتهجن دلاديت. ما أنت وحنا هالكم الصحافات كو قبنا هذا هذا أنت Somaliland إن لبضها بلودي فنانين تاع حدان حمد يوسف يهبر واقع قلنشة الحرية دودي اللي وصل عليه يعني بشي أفراد لبعتين كذي أي هاد مركي أي حمد يوسف كوري جاي كده جنتي مقالة هرجيسة أي كقبتان عيدا كسير دي Somaliland يجوا مركا كو أذين يو حتى حمر أما يعني تكتان كحمر وقد جاي كيس هساها تي يعني واحد حريه هذا مدة كل دولة ببلاد iyagu sharciga kama weyna sharciga way hoggaansan yihiin hadii wax dambiye iyo wax kiisa lagu helo laakiin waxa weeyaan muddo bil ah hadda waxay kiiskooda ku jiray maxkamadda gobolka ee magaalada Hargeysa maxkamadda gobolku markay dacwadda dhageysatay hablaha wax kiisa mar hadii aanay ku haynin oo ay wax kiisa ku weyday way fasaxday iyadoo go'aan ka soo saartay in maxkamaddu ay u celiso xorriyadoodii hase ahaatee xeerlaalinta ayaa waxay ka qaadatay raacfaan iyagoo hablaha xorriyadoodii loo celiyay mar hadaan qarnimada Somaliland ay wax u geysanin tagitaanka xamarna kiis cad loogu waayay inaanay wax aflagaada marna aanay Somaliland u geysan maxkamadda gobolka way fasaxday kadib waxay qaateen xeerlaalintu raacfaankaas oo ay xeerlaalintu ka qaadatay hase ahaatee hablahan xamar way tageen dad shacabka Somaliland shacab badan oo reer Somaliland way tageen fanaaniin iyaga la mid ah iyo qaar ka horeeyay way tageen hatta aan fanaaniin baa joogta madaxdeena seen ognahay way la kulantaa Muqdisho way la kulmaa madaxda Soomaaliya calaamad saarkii maanta uu tala kismaayo dad madaxda Somaliland kamid ah ka qayb gashay marka xamar tagitaankeeda maadaama aanay hablahan wax aflagaada u geysan marna aanay qarannimada Somaliland ka soo horjeedsan anigu waxaan aaminsanahay xamar baa la tagay in aanay qarannimada Somaliland aanay waxba yeelahayn because inagu qarannimadeena waa muqaddas xamar hadii la tago iyo hadii gobolka kale la tagaba inaga teenu way ka go'an tahay calan la qaatay iyo xamar la tagay toona qarannimada Somaliland waxba